السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة جال كمال مها وحن يسو قدبينا قصاد عيسى بدن نين تاجرة أيام معلم ما كمد وحكسو بحقور جيسا وحنو سوء هذه مقالة دا يسوء دونيو إنو تشقى الله كسو كحيو سوقا سيه الوقبطان نين كان وحو يميد سوقا وكاسا وحكسو كالعريضة شقى الله ومركا شقدونها نينكي أياكو يروحان دونيا shan qofood oo ii shaqeyso waxaana doonayaa inaan mid waliba aan sii hal diinaar markaasa dadkii markii arkeen ayuu wuxuu ku yiraahdeen inuu ma dhici karto maxay hal diinaar lacag maahan ee lacag inoo sheeg dood ayaa dhaxmartay kadib markii wada hadleen ayuu ninkii wuxuu ku adkaystay inuu doonayo shaqada loo qabanayo inuu qof waliba hal diinaar siiyo balse dhalinyarada markaa u timid ayaa waxay yiraahdeen hal diinaar wax lagu shaqeeyo maahan ee waxaan doonaynaa inaan qofkiiba siiso 20 diinaar ninkii waa uu ka diiday muddo ka bacdi waxa dhacday in dadkii ka kala tagaan markaas isagoo meesha taagan ayaa waxa u yimid dhowr oday oo waayeel ah iyagoo markaas aan ku faraxsanin ayuu wuxuu ku yiraahdeen niyahow maadaama aad ku adkaysatay inaad hal diinaar siinayso waan ku raacinaa shaqana ku soo qabanaynaa ninkii ayaa soo kaxeeyay nimankii wuxuu ku soo qaaday gaarigiisa markii soo dhaqaaqan ayuu wuxuu soo maray meel ka mid suuqa markaas wuxuu ku leexiyay meel baqaar meeshii ayuu joojiyay kadibna wuxuu geliyay baqaarkii markaas ninkii baqaarka la wuxuu ku yiri waxaad u rartaa nimankan shanta ah qof waliba inta uu doonayo raashina markaas mid waliba waxa loo soo saaray raashin ku filan bisho dhan markii soo qaateen ayuu wuxuu ku yiri shaqadii ay ka doonaytaan ay ahayd waad ku mahadsantihiin ajirkiina waad qaateen iska taga qisadani halka ayay ugu egtahay qisadan ay waxaan ka faa'iideynaa hadii aad doonayso inaad dad wax u qabato waxaad u qabataa dadka ay baahida ka muuqato ama ay dhabta ka tahay waxa dhici karta qofka inuusan baahnin balse adigu u malayso inuu baahan yahay nimankani maadaama ay ninkan soo raaceen waxay u soo raaceen dhibaato heesa darteed hase yeeshee nimankii iska tagay waxay muujinayeen dargaraayeen balse ninkan wuxuu doonayay inuu dadka imtixaamo si uu kala ogaado dadka baahan iyo dadka aan baahnayn waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay jalka maalmaha fadlan subscribe dheh gameelka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono mahadsanid.